بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وحان ولي ودنا تحانيه يا عشردي هردعا وأها عشرة إيمان دونا مقعيد إلهي سبحانه وتعالى آنو قهل ديني عشر كان وحو كساب سيهي إن أنفهمنا مخلوقاتك وإلهي سبحانه وتعالى أبوري محاوى حريرك إلا ليهين أما ليا لنكران مقعيد إلهي وأن كدورنا مخلوقاتك أن كهذينه ومخلوقاتك اللي يراهدو المكلفين ضدك اللوجوك تكليفية عبادة أوامرت إلهي وحو إلهي فريو وحو إلهي كريبيو كما هذينه بورها إيو وبيدا إيو إلهي سبحانه وتعالى أنكي سكليك لدون كما هذينه وحن كهذينا صدح ذا عبادة على قدر له ملائكته إيو جنيقة إيو إنسيقة سيدا دوكتهين ملائكته إلهي سبحانه وتعالى وحو كأبوري نور بو كأبوري وأنا ضد إلهي سبحانه وأنا خلقي إلهي سبحانه وتعالى وأبوري إن لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ملائكتنا أنت أنا نجي أجنهي إلهي سبحانه وتعالى بأج ترضى سيد أيهين ما إلهي كل الجوجان سيد الشقيان وعلم إلهي سبحانه وتعالى كل يسوع قرناه لكن أنت النصوص تعلق أركي ملائكته قارنوا كي جوجان ومخلوقاتي كلا بيل الجوجان أو حكى قرآن أو أوامرت إلهي كفليان قارن السماوات كي جوجان قارن عرشي أك جوجان صدرت دمانتون مع المخلوقات كاسوا مخلوقات إلهي قرنية إلهي نعابده انت أنا ندمبنا كدعين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون مخلوق اللباد وجنك دبك لغا أبوري من مارج من نار واحد دب لغا أبورينا سيدو دب دقناش ما يالان كران واحد بودبودو يوم بيمر البنوقنيان لكن أيونا ومكلفين مخلوق صدحاد وبن آدم كأنه أن كمنهاي وأنا متك أن ربنا إن كهذرنا سيدي ويا سامينت أي كل هذا هاي أم حرير نوعي أبا كدحية إنسجة هي مقعيد إلهي إنسجة مرك أن كهذينه وإنسجة إلهي سبحانه وتعالى بن آدم إلهي وأبوري وأفر نوع كل دون وأبوري مركي كواد نبي آدم إلهي سبحانه وتعالى وحوك أبوري ومخلوق ما شو كسب الله ذي بشر كأها روبا لقى أبوري وعراء حاو أو كحكتين فيرتي نبي آدم بالغا أبوري نبي الله عيسى إلهي سبحانه وتعالى وحوك أبوري هو يديس بوكو محانكو هذا مريم بوكسو دحبحي أسوأ أبلا أنا بونا الشيء خلقك أنتي سكلي أو جوه الرأي نبي محمد عليه الصلاة والسلام أو فضل بدن وحا كيمادين جور نين يناق كسادرتيت كذا شيء جور كاسبا المهاس إلهي سبحانه وتعالى كده حبوري خلقيgaas marka insiga ah Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ugu deeqay garasho garaad ay ku garan karaan Ilaahay xuskiisa ayna ku garan karaan Ilaahay awoodo buu siiyay awoodahaas ana quraanku noo sheegay mid koowaad waxa waaye awooda koowaad ee bini aadamka Ilaahay subhanahu wa ta'ala siiyay waxa waaye inuu garan karo waxa khayrka ah iyo waxa sharta ah falhamaha fujuraha wa taqwaha wuxuu kaloo Ilaahay siiyay awood uu ku garan karo waxa fiican wanaagsan مدنتا كجرتا iyo waxa fasaadka ka dhalanaya oo leeyahay al-masalih wal mafasid oo ilaahay waa kan dhahayo wahadeenahu an-najdayn wuxuu kale ilaahay awood u siiyay inuu wax doorto oo waxa fiicanna uu dooran karo asoo khiyaarkiisa ku dooran karo waxa khaldanna uu dooran karo faman shaa falyu'min waman shaa falyakfur wuxuu kale ilaahay siiyay inuu xagga cibaadada iyo diinta ka fududeeyo wixii asaga culays ku ah wama ja'ala alaykum fi ad-din min haraj wuxuu kaloo ilaahay siiyay bini aadamkan awood waasica oo aad iyo aad u ballaaran oo wax badan ku qaban karo haddana loo roonaaday oo la yiri la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wuxuu kaloo ilaahay ka ilaaliyay bini aadamka wax allaaleeyo wixii kartidooda garaadkooda waxay ka sikaraan ka xoog badan waa laga qaaday waana ilaahayna waa laga magan galaa waxa la yiri wala tuhammilna ma la taqata lana bi ilaahay waxaan kareynaa dul saarin sadarteed واتن ay ku dhamaanayso in Ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa uu fududeeyay wax kasta oo fududna u keenay yuriidu Allahu bikum al-yusra wala yuriidu bikum al-usra sida darteed makhluuqan la yiraahdo bini aadamka saameyn aad u xoog badan buu ku leeyahay magacyada Ilaahay inkastoo saameyntaas ay kala duwanaanayso oo midda malaa'ikta iyo jinniga iyo tanisiga ay kala duwanaanayso oo waxa saameyn ku yeelanaya dabeecadda asalka Ilaahay uu abuuray marka ay farxaan siday u farxaan
marka ay naxaan sidee u naxaan, sidee bay fahamkooda iyo qaadashadooda fahamka siduu yahay. annagu waxa aan qiyaas ka qaadan karna uun waa bini aadamka. saa darteed bini aadamku saameyn toos ah bay ku leedahay marka uu magacyada ilaahay maqlayo ama magacyada ilaahay dabeecadiisa iyo abuurkiisii saameyn toosa iyo saameyn dadban bay ku yeelanaysaa. waxaa la yidhahdaa qofka muslimka ah waxay ku leedahay saameyn toos ah. waxay ugu imaanaysaa xagga islaamnimada, waxay ugu imaanaysaa xagga cibaadada, waxay uga imaanaysaa xagga aqoonta. intaasoo dhinac kala duwan bay uga soo gelaysaa maadaama uu muslim yahay, fitradiisii asalka ahaydna ay tahay fitradii ilaahay subxaana watacaala uu abuuray. waxay kaloo saameyn ku yeelataa qofka aan mu'minka ahayn oo si aanan ku talagal ahayn oo asagu aanan is ogeyn marka uu xaalad uusan ku dhex jirin dhex galo ay kasoo fakanayaan hadallo waxaan uu ilaahay u celinayo. waad maqasheen wax badan dadaan muslimiin ahayn oo oranaya oh my god. ereygaas erey caan ah waaye, laakiin wuxuu ka imaanayaa si aan ku talagal ahayn bay waxay u garanayaan waxaanu inay ayaga awoodoodii ka baxsan tahay xag ilaahayna ay ka imaanayso. sidaa darteed bini aadamka ilaahay wuxuu siiyey qalbi oo ah meesha laga xukumo jirkiisa oo dhan, qalbigiisa laga xukumo, maskaxdiisa laga xukumo, meel kastoo jirka bini aadan ka imidana qalbiga laga xukumaa. waata nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu leeyahay alaa ina fi ljasadi mudqa idaa saluxat saluxa aljasadu kullu wa idaa fasadat fasada aljasadu kullu. meesha labaadoo jirka bini aadamka magaca ilaahay iska soo gelayaan waa carabkiisa oo ah waxa cabira waxa damiirkiisa ku jira. qofka waxa maskaxdiisa ku jira ama damiirkiisa ku jira carabkaa soo tuura. jirka intiisa kalena wuxuu fuliyaa waxa maskaxda iyo carabku ay rabaan. sidaa darteed qalbiga waa meesha laga fakaro, carabkana waa meesha ilaahay subxaana watacaala laga xuso, jirka intiisa kale iyo xubnaha kaleoo jirkana waa meesha tallaabaqaadka. hadaad masaajid aadayso, hadaad sadaqa bixinayso, hadaad ficil wanaagsan samaynayso. saa darteed qofkan bini aadamka ilaahay markuu uumay wuxuu u abuuray qur-aanka sida igu cadaynayo inuu noqdo khaliifatullaahi fil ardi, qofka ilaahay dhulka wakiilka uga ahaa ee dhulkan ku noolaan lahaa. laba shaqaana la rabaa insaanka inuu dhul ka qabto, mid waa inuu ilaahay ku caabudo, midna waa inuu dhulka laftigiisa u camiro. oo camiraadaasu ay noqonayso inuu si wanaagsan u camiro, dhaqan wanaagsan ku camiro, fasaadka iyo dhibaatadana uu ka ilaaliyo. sidaa darteed culimmadii hore muslimiinta uu ka mid yahay Farabi waxay oran jireen sacaadada qofku inuu barwaaqo dareemo, raaxo dareemo waxay ka timaadaa sida ay saameyn ugu yeelatay magacyada ilaahay. waa marka maskaxdaada aad magacyo ilaahay soo geliso, saameynta ay kugu yeelanaysaba waxaa ka dhalanaya in adigana farxad iyo reynreyn aad ku noolaanayso. ilaahay subxaanahu watacaalana wuxuu kaa fiirinayaa magacyadaas sida aad ugu dhaqmayso. alkariim, adig kariim ma tahay? alghani, dadka wax siinaya oo dadka wanaag u sameynaya ma tahay? tilmaamahaas laftigooda sida adiga ula falgelaysana ilaahay wuu kaa fiirinayaa. waxay kaloo culimmadu leeyihiin saameynta magacyada ku yeelanaysa waxaa weeye qofku inuu ilaahayna run kula noolaado, khalqigiisana uu run kula noolaado. waxaana marka dambe uu gaari doonaa qofku hal shaqo oo uu qabtay inay ummaddu intifaac weyn, waxtar weyn ay ka yeelato. oo culimmada muslimiintu ay u daliishadaan qisadii nabi muuse caleyhi salaatu wasalaam markii uu soo baxsaday ee uu yimid ee uu meel bannaan iska yimid ee uu geed hoostii iska hoos fadhiistay ee uu arkay gabdho meel ceela jooga oo rabo ceelkaas in wax u dhaamiyana garan la, duruuftooduna ay ku adag tahay. inta u yimid uu ku yiri qaala maa khatbukumaa qaalataa laa nasqii xataa yusdira ricaau wa abuuna shaykhun kabiir. culimmada muslimiintu marka waxay sheegaan nabiyullaahi muuse inuu hal ficil sameeyey. ficilka uu sameeyeyna muxuu ahaa? inuu biyaha u dhaamiyey. markuu biyaha u dhaamiyeen intuu geed iska fariistay buu yiri rabbi innii lima anzalta ilaya min khayrin faqiir. waxay culimmadu sheegaan marka ficilkaas keliya ee dadka wanaagga uu sameeyey ee adduunyada uu ku camirayay inay 6 faa'iido uga dhalatay. faa'iidada koowaad waxay ahayd inay xoolihii waraab heleen. faa'iidada labaad waxay tahay gabdhihii inay daalkii ka nasteen oo qof caawiye ay heleen. faa'iidada saddexaad waxay ahayd inuu bartay ninkii saalixa ahaa oo culimmada qaar ay nabiyullaahi shucayb ku sheegeen. faa'iidada afraadi waxay ahayd in nabi muuse dhibaatadii ku soo socotay ku imaan rabtay uu meel uga nabadgalo helay. faa'iidada kalena waxay ahayd in nabi muuse uu shaqo helay oo cid shaqo siisaba uu helayba. faa'iidada kalena waxay ahayd inuu guurba helay oo meesha guur uu ku helay. marka hal ficil oo biyo dhaamis ah oo gabdho meel taagan uu ku caawiyey baa nabi muuse calayhi salaam wuxuu ka helay intaasoo faa'iido ah oo ay ka mid tahay inuu guur helay, inuu shaqo helay, inuu nabad galay, inta hadda aan soo sheegnay ah. sidaa darteed qofka bini aadamka marka aad caawiso
faa'iidada ka dhalan karta waxaa laga yaabaa inay adiga kugu soo noqoto asalkeedana waxay ka timid inaad ummadda qof wax taraya aad noqoto oo ay saameyn kugu yeelato sidaa darteed waxay culimmadu yidhaahdaan ilaahay subxaanahu wa tacaala afar shay buu ku xiray haddii adiga aad ballamaha ku fiican tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ballamuhu kuu qaaday wuu kuu fulinayaa wuuna kugu dhiirigelinayaa wa awfuu bicahdii uufi bicahdikum haddii aad tahay nin dadka wax u fududeeya oo dadka caawiya oo cariiriga ka ilaaliya oo meeshii la isugu yimaado iyo duruuftii la isugu yimaadaba albaabada u fura adigan ilaahay waa kuu furayaa fafsaxuu yafsax illaahu lakum haddii aad tahay qof jacayl ku nool oo wax walbaba jacayl ku sameynaya oo diinta jecel adigana ilaahay jacaylkiisaad helaysaa in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah haddaad jeceshahay in lagu sheego oo magacaaga meel kasta gaaro adigana waxaa lagaa rabaa khaaliqii ku abuuray inaad sheegto fadkuruunii adkurkum saa darteed magacyada ilaahay waxay isu bedeli doonaan wax dhaqankaaga maalinlaha ah ku dhex jira adoo kasoo dheehanaya aqoonta aad u leedahay magacyada ilaahay laakiin lagaaga baahan yahay inaad si fiican u dhuuxdo si fiicanna ay maskaxdaada u gasho